بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال مeel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii duurjoogta barnaamijkeennan duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa shabeelka Seerbiya iyo weliba seeraha weyn ee Bedriya waa qaybteennii saddexaad waana qaybteennii ugu dambeysay balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay shabeelkii kale ee dhediga ee ay walaalo ahaayeen ee labaad ayaa isna maray halkii ay walaashii soo martay mar hore waxaana yimaadeen xuduuddii hooyadood markuu shabeelku ugaarsanaya habeenkii waxa uu ugaarsadaa si taxadir leh wuxuu socdaa socod aan sanqadh lahayn oo aayar ah goobtan ay ku sugan yihiin labada walaalaha ah iyo hooyadood waxa isna ku nool oo ku sugan shabeel lab ah kaasi oo isaguna raadsanaya cuntadiisa shan boqol oo mitir ayay walaaluhu hadda isku jiraan oo midba midka kale u jiraa walaalihii mid ka midii waxay ka daba tallowday duurjoog ka tallowday webiga waanay daba socotaa
balse isna waxa goobta jooga shabeel kale oo hadday is arkaan ay halis tahay inay fooda istaraan. waxay isku dayeysaa in ay aad ugu dhowaato si qabashadu u fududaato. habka ay u soo gashay ayaa ka qaldamay. waxaa laga yaabaa in ay ku guuldaraysato ugaarsigan. run ahaantii waa ay ku guuldaraysatay ugaarsigii. waxaa timi walaasheedii kale, waxa iyana ku soo biirtay hooyadood. waxaa u dhow isna shabeel lab, balse walaaluhu waxay u baahan yihiin waayo aragnimo badan oo ay ku ugaarsadaan habeenkii. seeraha weyn ee shabeelka khatartii ku nool yahay ama shabeellada khatartii ay ku nool yihiin waxaa u dhow tuulo, taasi oo ay dadku degan yihiin. kolba bulshada korarkeeda ayuu shabeelkuna ka sii baxaa khadka oo uu ka sii fogaadaa arligan ama seerahan bedriya ee dalka Nepaal. afartii shabeel waxay ugaarsadeen ma jirto, waxaana u bariyey waagii. waxay yimaadeen shabeelladu mid kasta xuduudkiisii. dhammaan duurjoogtu kala duwani waxay daaqaysaa seeraha, waxaanay mar kasta samaynayaan hadday tahay habeenkii iyo hadday tahay maalintii taxadir aad u fara badan. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. sabscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha yaga. dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay.
waa tahay daawadayaal qaybteennii saddexaadna intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno waxaan leenahay dhammaantayo kadaba iyo kulan dambe oo xiiso badan